ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال سيدة آد لسعتين الله سبحانه وتعالى وحاوليه مقعيو ونوناكسن والله يقانو أسماء الله الحسنى مقعيدا ونوناكسن بالليه وسقاشن يسقال مقع ومقعي أنا للو ذاقين بكلي ليه كلينا مضيه ومقعيدا الله لغو بريو لغو توغو أجري حسنات لوغو هلو marka dambana aakhirana laga rajeeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala janno ku geynayo magacyada wanaagsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay iyo sifooyinkiisaba waxay ka mid yihiin waxyaabaha asaaska u ah qofka muslimka ah inuu qalbigiisa u diyaariyo maskaxdiisa u diyaariyo si uu Ilaahay si toos ah ugu xirmo hadaa doonayso marka inaad magac barato waxaad u baahan tahay magaca ugu fiican waa magaca Eebe subhanahu wa ta'ala waxaan halkan ku qaban doonaa casharo taxana ah oo aan uga hadli doono magacyada Eebe weyne oo aan sameyn doono sharaxaadyo kala duwan laakiin inta aanan guda gelin inaanu ka hadalno magacyada Eebe oo aan tafsiir iyo sharaxaad iyo macnayn u sameyno waxaan ka sii hormarin doonaa dhowr cashar oo aan u bixinayno casharo horodhaca cashirka koowaad ee aan maanta soo jeedinayno wuxuu ku saabsan yahay muxuu yahay magac maxayse tahay muhiimaddu magaca uu leeyahay qofka bini'aadamka ee noolaha ah waxa aad loo wada og yahay in uurka bini'aadamka waxa ku jira si uu u soo saaro inuu u baahan yahay hadalkaas sida uu u soo baxana wuxuu u baahan yahay erayadaasuna ay isku bedelaan oraah isla socota oo faa'iido la maqlo lana weeleen karo ay ka dhalan karto si aad ugu hadasho erayo isu bedelaya oraah waxaad u baahan tahay waxa taqaano oo aad ku hadasho waxa taqaano si aad u heshana waxaad u baahan tahay inaad hesho cid ku barta erayadii aad u bedeli lahayd oraah lagu hadlo taa marka waxay cabiraysaa muddooyinka iyo isdabayaalka maskaxda bini'aadamka siday u shaqeyso ilaa ay u soo baxdo kelmado afka ka soo baxaya oo lagu hadlayo waxay culimadu luqaddu sheegaan magacu inuu yahay shayga ama waxa lagu garto walxaha qiimaha ay leeyihiin haday faa'iido tahay hadii faa'iido darro ay tahay hadii ay khasaaro tahay iyo hadii ay tahay wax nacfi leh sidaa darteed shayga hadaa rabto inaad garato waxaad ku garan kartaa marka hore kaydka maskaxdaada siday u aruurisay shayga magaciisa haddii kale aadan magaca aqoonin waxaa kaa dhumaysa inaydan maskaxdaada ku jirin waxa aa aragtay waxa ay yihiin tusaale ahaan haddii aad seef aragto ood magaca seefta taqaano maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya inay tahay wax dadka dhiba dadka dhaawaca ama dadkaba dili kara waxaa taa ka soo horjeeda haddaad aragto biyo waxaad garanaysaa wax faa'iido leh inay yihiin wax la caba inay yihiin markaad biyaha sii kala taqaano magacyadoodana waxaad garanaysaa webi miya bad miya ceel miya xareed miya barkad miya ka cabaysaa magacyadaas waxay saameyn ku leeyihiin fahamka aad ka haysato waxa aragtay haddii laakiin aadan garanaynin seeftu waxay kuu noqonaysaa wax tuman oo meel yaala oo waxay qabanaysa aan la garanayn haddii aad biyaha aragtana inay sun yihiin inay daawo yihiin iyo inay jiran yihiin ma kala garan kartid saa darteed shayga magaciisu wuxuu saameyn ku yeeshaa maskaxdaadu sida marka hore ay u shaqaynayso waa halka caruurtu ay awood u leeyihiin gacanta midigna inay qalin ku qabtaan gacanta bidixna dhimbil dab ah ay ku taabtaan sababtuna waxay tahay dadka waayeelka ag joogana ay oranayaan ilmahaanu malahan garaad iyo garasho uu ku kala sooco talaabadu qaadayo iyo waxa uu taabanayo laakiin haddii uu garanayo waxa inay dhimbil tahay uma u dhawaadeen haddii ay tahay qalinna
wixii uu ku qabsanayo maskaxdiisu mar hore diyaar u tahay. eebbaweyne subxaanahu wa tacaala waxa ugu wanaagsan ee uu abuuray waa bini aadan, wuuna karaameeyey oo sharaf iyo karaamo ka duwan uunka intiisa kale ayuu eebbe siiyey. sidaa darteed ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim, bini aadamka waxaan u abuurnay sida ugu qurxan ee wax loo toosiyo. axsani taqwiim, sida ugu sii qurxan oo wax loo toosiyaa ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray. toosintaasu waxay ka timid in ilaahay qofka caloosha hooyadii geliyey. caloosha hooyadii marka uu ka soo baxayana wuxuu ka soo baxayaa asaga oo aanan waxba garanaynin. waa meesha Allah subxaana wa tacaala uu ka leeyahay wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an. noolihii bini aadamka ahaa ee caloosha hooyadii ilaahay ku abuuray markii uu ka soo saarayay wuxuu garanayay ma jirin. kaana laa yaclamu shay-an wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an. markuu halkaa jooguusan waxba garanaynin, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey agabkii uu ku heli lahaa ogaalka ama cilmiga uu ku heli lahaa oo kale ah maqal iyo arag iyo qalbigii waxaas ay ku aruuri lahaayeen oo ku samaysmi lahaayeen. waa meesha ilaahay ka dhahay wajacala lakum as-samca wal-absaara wal-afidata lacallakum tashkuruun. noolihii bini aadamka ahaa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala sida ugu quruxda badan u toosiyey, hooyadii caloosheedana uu ka soo saaray, ee uu siiyey agabkii uu wax ku baran karay oo ahaa maqalka iyo aragga ay ka mid ahaayeen, wuxuu u baahday inuu awood u helo inuu hadlo. wuxuu u baahday inuu awood u helo inuu wax kala sooco. sidaa darteed ilaahay wuxuu siiyey wax kale oo uu u baahan yahay si uu awood ugu yeesho inuu hadlo ama inuu wax kala sooco. waxaasu maxay noqdeen? alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu annajdayn. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey oo u abuuray indhihii uu wax ku arki lahaa, carabkii uu ku hadli lahaa, iyo bishamihii carabkaas toosin lahaa oo halkii carabka hadalkiisa uu marsiin lahaa waddadiisii ay u tahay. markuu helay marka indhihii, carabkiina helay, bishimihiina helay, wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala awood u siiyey haddana inuu hiddaha uu qaadanayo iyo tubta uu marayo, ma waddo fiican buu qaadayaa, ma waddo wanaagsan buu qaadayaa, adigaa go'aankeeda iska leh. sida aad u leedahay haddaad adigoo waddo maraya habowdo, indhihii baa ilaahay ku siiyey, waad aragtay inaad lunsan tahay. carabkiina ilaahay waa ku siiyey, bishimihiina waa ku siiyey. qofka kuugu dhowaad odhanaysaa war jidkan aan hayo ma jidkii saxda ahaaba. haddaadan laakiin hadli karin, sidee baad ugu sheegaysaa qofka aad rabto inuu ku caawiyo oo uu ku geeyo meeshii aad aadi lahayd? saa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala marxaladaasna qofka bini aadamka waa keeno awood uu helo inuu kala soocdo jidka uu marayo, ma kii khayrka mise waa kii sharta. markuu ilaahay intaa qofkii bini aadamka isugu toosiyey ee uu isugu aadiyey abuurkiisii kiisi ugu toosnaa loo sameeyey, agabkii uu wax ku maqli lahaana la siiyey, wuxuu u baahday inuu hadlo, wuxuu u baahday in waxa qalbigiisa ku jira uu soo saari karo oo uu bannaanka u soo bixin karo. si uu bannaanka ugu soo bixiyo marka, maadaama uu haysto agabkii ama adawaadkii uu ku samayn lahaa intaa, wuxuu u baahan yahay wax asaga ka baxsan oo u yimaada oo gala oo aqoon u noqda. aqoontaas marka ay keento la yiraahdo waxaan magacaas baa la dhahaa, waxaan waxaas baa la dhahaa, walxahan markaa aragto sidaas bay yihiin. kabacdina wuxuu ku dul baranayaa si automatic oo isugu xiran waxaas waxay yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuu isku xijiyey abuurka bini aadamka iyo inuu siiyo aqoontii wax u kala sooci lahaa. ilaahay wuu isku xijiyey. quraankiisa ilaahay wuxuu ku yiri bismillaahi raxmaani raxiim arraxmaan callama alqur'aan, waxaa ku xiga khalaqa alinsaan callamahu albayaan. ilaahay markuu abuuray noolihii oo bini aadamkii uu sameeyey, wuxuu haddana baray garaadkii wax ku kala sooci lahaa. bayaanku waa waxa wax ku kala saarayso, wax ku kala garanayso, adiguna aad wax ku gudbin karto oo garashadii iyo garaadkii oo wada socda ah. sidaa darteed isla aayadda markii ilaahay uu sheegay inuu bini aadamkii abuuray, waxyaabihii wax ku caddaysan lahaa awoodeediina uu siiyo, cilmigeedii uu siiyey, waxaa la baray ugu horreeyay waxay ahaayeen magacyo. waxaa la baray qorax, waxaa la baray dayax, waxaa la baray xidigo, waxaa la baray geed, waxaa la baray cir,
waxaa la baray dhul markaas haddana waxaa loogu daray waxaan magacyada loo sheegay maxay yihiin maxayse qabtaan waa kan ilaahay oranayo khalaqa al-insaan allamahu al-bayaan ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-miizan ila ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka gaarayo wal-arda wada'aha lil-anam sida darteed bini aadamka maskaxdiisu siday u samaysan tahay markuu cirka fiiriyo waxa u soo baxaya waxa la yiraahdo samadaas maxay qabataa miisaanka ayay toosisaa markuu cirka fiiriyo wuxuu arkayaa qorax iyo xidigo waxa u soo baxaya waxay taraan xisaab bay taraan waxa dhulka markuu fiiriyo markuu hoostiisa fiiriyo waxa u soo baxaya magac la yiraahdo dhul kadib wuxuu garanayaa wax la fidiyay oo bini aadamka dartiis loo fidiyay sidoo ugu intifaaci lahaa sida darteed magacu wuxuu ku daaweynayaa oo uu ku sahlayaa inaad garan karto magacaanu muxuu u samaysan yahay markaasaad garan kartaa sidaad ugu intifaaci lahayd naftaada iyo dadka kale aad wax ugu tari lahayd waana madda ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu isugu xijiyay al-khalqu wal-bayaan abuurkii iyo wixii aad wax u kala cadaysan lahayd oo ka bilaabanayso magacyadu iyo waxa ay taraan sida darteed shayga aadan awoodin inuu hadlo oo waxa ku jira soo saaro wuxuu luminayaa qiimaha uu asaga leeyahay wax aan jirin wax aan hadli karin macnaheedu waxa waaye waa wax aan jirin hadiiba wuxuu hadli karaan waa noole qiimihiisu intee leeg yahay faa'iidadiisu intee leeg tahay waa mowduuc kale waa halka nabiyullaahi ibraahim qisadii dheerayd markii uu ku soo gabagabeeyay waxaan yaa sameeyay markii la yiri wuxuu yiri bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun kan ugu weyn baa falkan ku kacaye bal warsada haduu hadlayo macnaheedu waxa weeye war waxaan hadlaynin maxaad u caabudaysaan war waxaan adigiiba ku jawaabaynin oonan awoodin inuu ku dhaho waxa samee ama uu ku dhaho waxa ha sameeynin sideebaad adiga diintaadii iyo cibaadadaadii aad ugu dhiibaysaa wuxuu markaa nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam uu tusayaa maadaama uu yahay noole aan hadlaynin waa noole aan wax taraynin maadaama uu yahay noole aan hadlaynin waa noole aan waxba faa'iideynin sida darteed marka kale ee waxa laga sabro aysan rajaba lahayn waa marka uu waayo saddexda dareen ee bini aadamka asaaska u ah oo ah maqal iyo hadal iyo indhe waa marka uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala oranayo summun bukmun umyun fahum la yarji'un saddexdaas dareen ee kala ah araga maqalka iyo indhihi aad wixii oo dhan ku wada soocaysa hadii laga waayo wax rajo oo xataa mustaqbalka laga qabi karo ma jiraan waxaan u imanaynaa bini aadamku sideebuu ku helaa aqoonta sideebuu ku helaa cilmiga sideebuu si ku soo gaaraa waxaad garanaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala in bini aadamka uu u baahan yahay inuu ku abuuray inuu u baahan yahay inuu hadlo inuu u baahan yahay waxa ku jira inay ka soo baxaan wataan ka soo sheekeynay sida aad u hadashana waxaad u baahan tahay waxaad ku hadlayso inaad garanayso magacooda inaad soo baratay waxa magacooda maskaxdaada keedkeedana ay soo saarayso shaygan magaciisa waxa ugu qiimaha badan ee ilaahay soo dejiyay waa quraankuna waa hadalkiina waa hadalka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nala hadlayo oo uunkiisa la hadlayo oo noloshiisa iyo sidii uu noloshiisa u maamulan lahaa uu sharxayo sida darteed bin aadamka aqoontiisu waxay ka imaataa sababa fara badan laakiin waxaan ka soo bilaabaynaa asalkeedii meesha ka timid asalkeedu waa xagee bin aadamku wuxuu ka yimid nabiyullaahi aadam oo uu ku abtirsadaa oo ah noolihii bini aadam ah ee qof ah ee ilaahay abuuray waa nabi aadam marka aqoonta xagee buu ka keenay nabi aadam wuxuu aqoonta ka keenay ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa baray oo wuxuu baray wax allaala iyo wixii aqoon uu uga baahnaa ama agabkii uu baahnaa inuu aqoon ku helo waa hibo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nabigiisa calayhi salaam nabi aadam uu siiyey sidaasna iyadoo dhaxal ah oo luqado kala duwan ah oo afaf kala duwan ah ay ummadaha ku soo gaartay ilaa maanta annaga aan joogno ay noogu imaatay waxa ilaahay uu nabi aadam baray waxa la yiraahdaa waa
laakiin ilaahay marka uu sifeynayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay cilmi oo wuxuu yiri wa'allama aadama al-asmaa kullaha meeshan ilaahay wuxuu ku qirayaa inaad walxaha magacyadooda taqaano inay tahay aqoon iyo cilmi waana mid uu ilaahay yiri wa'allama aadama al-asmaa kullaha malaa'iktii la geliyay tartanka oo la yiri war nabi aadan intaasuu garanayaa bal idinku waxa taqaanaan sheega ayaguna waxay qireen cilmi ka maqan oo aan la barin inuu jiro oo waxay yiraahdeen subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana oo ula jeedaan cilmigan ilaahay oo namaadan barin saadarteed ma naqaano marka cilmu musammayat al-ashya shayga magacyadooda iyo waxa ay magacyada ka turjumayaan ayagu malaa'iktu laftigooda way qireen inay tahay cilmi oo nabi aadan uga aqoon badan yahay cilmigu marka wuxuu keenayaa inaad awood u yeelato garasho inaad awood u yeelato inaad kala saarto walxaha sida ay isku kala yihiin iyo sida ay nacfi u leeyihiin cilmigaasu waa kan ilaahay bini aadamka ku karaameeyay ee uu uga soocay xayawaanka oo uga soocay waxyaabo fara badan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray sida darteed luqaddu waxay asal u noqotay inay tahay shayga ugu weyn ee qofka bini aadamka ama noolaha bini aadamka uu haysto waa meesha culimada qaar ay ka dhahaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala koonka wuxuu keenay ilaa 5,000 oo luqadood halkan hadda ugama sheekeen doono luqadaha adduunka la keenay waa imisa yaa waaye cid ugu horeyso hadasho inta aan la hadlin ka hor maxaa la isticmaali jiray ma tilmaan baa luqad ahayd sidee loo hadli jiray kamana hadli doono qofka bini aadamka sidoo ilaahay u abuuray ee bishimihiisa ilkihiisa wajigiisa iyo la shaqeynta maskaxda sida isugu xiran yihiin halkan hadda ugama hadlayno waxaan ku soo koobaynaa kaliya hadalka iyo magacyadu waa awood ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu bini aadamka siiyay qofkii u horeeyay oo la baranay inuu yahay abuna nabiyullaahi aadam calayhi salaam saadarteed luqaddu waa hadal waana tilmaan markay halkaa joogto culimada luqadu waxay kala qirsan yihiin luqaddu inay tahay shayga qofka habfakarkiisa iyo dhiraandhirinta maskaxdiisu samayso marka uu rabo inuu wax sheego inay ka imaanayso asalkeeda luqadda marka ayadana waa tan dhowr jeer sharaxnay oo aan niri waxay ka bilaabataa shayga magaciisa sidaa darteed qofka dhagaxa caabudaya wuxuu u yaqaanaa dhagaxaas ilaah wuxuuna rabaa inuu dhagaxaas caabudo laakiin dadka muslimiinta waxay u yaqaanaan dhagax marka maadaama uu dhagax yahay magacaas aad taqaano maskaxdaadu waxay rajiis garaynaysaa inaan la caabudi karin inuusan kula hadli karin inuusan wax ku tari karin laakiin qofka markii uu dhashayba loo baray sawir meel yaala oo gacan ku samaysa la yiri waa ilaahaagii maskaxdiisu ma qoreyso waxaanu waa dhagax waxna kuma sameynayo halka waxa ka garanaysaa marka magaca shayga sida ay qofka noloshiisa inta ka dambaysa oo dhan ay saameyn joogta ay ugu yeelanayso sida darteed xataa bulshooyinka markii la darsay waxa soo baxday habkay u hadlaan iyo habkay u sheekeeyaan inay calaaqa la leedahay habkay u fakaraan inay calaaqa la leedahay luqadda ay ku hadlaan jaamacad Mareykanka waxay baaritaan ku samaysay luqadaha adduunka sida ay saameyn ugu leeyihiin qofka bini aadamka fakarkiisa waxa u soo baxday qofka luqadda Englishka ku hadla marar fara badan inuu ka sheekeeyo markuu qisada sheegayo inuu xoog saaro sababta qisadan keentay halka dadka luqadda Japanese-ka ku hadlaya ay qisada kaliya wariyaan waxa dhacay kaliya bay ka sheekeynayaan ma moodaa inay meesha Soomaalida ugu egyihiin oo Soomaalidu inta badan ka sheekayso waxa dhacay kaliya aysan asbaabta waxaan keenay aysan aad ugu mashquulin waxa kaloo la wariyaa geeska Afrika anaga aan ku noolnahay qowmiyadahooda mid kamid ah inaysan luqadooda ku jirin 150 sano ka hor kelmadda la yiraahdo been taa marka waxa la yiri waligood been ma sheegin sababtoo ah ereyga beentu waa wax qofku alifay uu diyaariyay dadkana ku dhex faafiyay asagoo og inaysan xaqiiqo ahayn laakiin hadaysan dhaqankaagaba ku jirin wax la yiraahdo been qofku ma alifi karo waxaan jirin saadarteed wuxuu yaqaanaa waxaan waan garanayaa iyo waxaan ma garanayo in wax u dhaxeeya jiraan oo dadka lagu lumin karo oo lagu wareerin karo maskaxdiisu ma diyaarin karto
annaga qowmiyadda Soomaalida haddaan nahay waxaa nagu badan inta badan sheekadanada fadhi ku diriradannada meelaha aan ku doonno aan ku sheekaysano sheekadanadu waxay u badan tahay wixii la soo dhaafay waa ku yar tahay waxa soo socda waxaan inta badan ka sheekaynaa waxa soo dhaafay waxa dhacay ma maqashay saasaa la yiri ma maqashay markii la soo fariistay waxa la yiraahdaa maxaa la sheegay wax la soo dhaafay way nagu yartaa inaan ka doodno maxaa soo socda 5 sano soo socota maxaa dhici doona lianna luqadeena iyo culture-keenan ku jirin sadartii dadka Soomaalida ee ka soo shaqeynay afka Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga ama dhismaha ummadda Soomaalida sheekooyinka la yaqaan waxa kamid ah ereyga la yiraahdo qorsheyn af Soomaaliga in mar dhow lagu soo daray oo wasaaradii u horeysay oo qorsheynta oo dawladda Soomaaliyeed ay sameysay lagu soo daray waxa arintaas si public uga sheekeeyo dadka Soomaalida u sharxay madaxweynihii maamulka Soomaaliland Axmed Siilaanyo oo yiri ereyga aniga afka Soomaaliga ku soo daray markii hore waxa la rabay buu yiri in la qoro wasaaradda jaangoynta waxa la baaray ereyga jaangoynta waxay noqotay waxaad haysato sidaad u maamuli lahayd laakiin qorsheyntu waa wax aadan haysanin sidii aad u keeni lahayd luqadanada Soomaaliga marka maadaama aysan hodan ku ahayn caana ku ahayn dadkuna wada garanaynin inay ka hadlaan waxa soo socdo waxaad arkaysaa qofka Soomaaliga inuu garanayo maanta barito bari dambe asbuuca dambe bisha dambe sanadka soo socdo wixii ka dambeeya waa xisaab marka 2 sano 3 sano 4 sano 10 sano meesha carabtu aqdi tiraahdo luqadaha kale oo dhan loo yaqaano erey afka Soomaaliga 10 sano anagu 10 sano aan niraahna sida darteed wax ka badan 2 sano ama 3 sano maskaxdiisa dhinaandhintiisa way nagu yartahay waa sababta dagaalada ceelasha ay u dhacayaan waa sababta dagaalada sokeeye marar badan ay u soo noqonayaan sababtoo laga ma fakirin waxaan sidee uga baxnaa waxa laga fakiray duruufta markaas aan ku jirno sidii aan ula dhexnoolaan lahayn sida darteed luqaddu asalkeeduna yahay magac waxay saameyn ku leedahay sida aad u fakarayso waa meesha aan rabno marka inaan ka soo galno inaad Allah subhanahu wa ta'ala magaciisa taqaano waxay saameyn ku leedahay sidaad u rumaynayso waxay saameyn ku leedahay waxaad u baahan tahay waxay saameyn ku leedahay iimaankaaga waxay saameyn ku leedahay qiimaha iyo qaayaha iyo weynaanta qalbigaaga iimaanka inta uu leeg yahay ku jira sida darteed markaad maqasho Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus ereyadaas macnaha ay sameynayaan noloshaada saameynta ay ku yeelanayaan waxay ka imaanaysaa ereyadaas mugooda iyo miisaankooda sida ay qalbigaaga iyo jirkaaga iyo maskaxdaada ay u galeen haddii marka aadan garanaynin Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa haddii aadan garanaynin Allah subhanahu wa ta'ala sifooyinkiisa waxa hoos kaaga dhacaya sidee baad Ilaahay u baryaysaa sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa markaad u baahan tahay dambi dhaaf sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa inuu ku xoojiyo markaad ugu baahan tahay inuu ku xoojiyo sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa markaad u baahan tahay inuu ku irsaaqo sidee baad ugu sheeganaysaa markaad rabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu hodan ka dhigo sadarteed magacyadu waxay ka saameyn doonaan marka aad barato Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa wanaagsan ee tira badan iyo sifooyinkiisa wanaagsan markaad barato waxay ku sahli doontaa inay naftaadu hesho sida ugu quruxda badan aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ku weydiisanayso casharka soo socda baan uga hadli doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacyadiisa in la barto waxa ay u tarayso qofka muslimka ah والسلام عليكم ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسانو قلبيقو وهان هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مقا عيسو ووارسان دمانا